doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha milatariga ee ku-meelgaadhka ee dalka suudaan iyo hoggaanka dibadbaxayaasha dhigaya ayaa magaalada caasimadda dalkaasi ee khartuum ku kala seexday heshiis awood qaybsi ah oo taariikhi ah. heshiiskan ayaa dhabaha u xaadhaya in labada dhinac ay soo dhisaan gole isku dhaf ah oo ka kooban militari iyo rayid, kuwaasi oo shaqayn doona muddo 3 sano ah ilaa iyo inta laga gaadhayo doorashooyin, islamarkaana hoggaanka ay qabanayaan rayidku. iyadoo saxeixa heshiisku uu ahaa mid kooban ayaa haddana saacado kadib caasimadda khartuum waxaa ka socday dibadbaxyo heshiiska loogu dabaaldegayo. dadka reer suudaan ayaa ruxayay calaamo islamarkaana ku dhawaaqayay halkudhigyo caan ah oo ahaa xilligii dibadbaxyada, kuwaasi oo ay uga caansanaayeen kelmadda madaniya oo macnaheedu yahay rayidka. waxaana heshiiskani uu noqonayaa guul u soo hooyatay dadkii rayidka ahaa ee dibadbaxyada dhigayay, kuwaasi oo dalbanayay in la sameeyo xukuumad cusub oo weliba rayid ah. mas-uuliyiinta dalka afghanistan